runtii laba jaada sharaf runtii marka aad meediyada gasho aad runtii mid waxa weeye mid waxaan runtii ugu tala galay marka meediyada qofku markuu xildhibaan noqdo horta meediyadu waa cadow iyo nacab labadaba way tawa mindi laba af leh haday kugu soo jeestaan si xun bay kugu galayaan aniga waxaan qabtaba inta badan xagga kale ka rogaan faa'iido badan kama helo laakiin waxaan leeyahay saaxiib aan la tashado markay arrintu kulaato saaxiibkii marka waxaan ku idhaahdaa baniyo arrintu xaggay ka xidhmi laadahay waxaan soo qabtaba waatan waxaa leeyahay halkan u kariday xaggan u kariday adigoo qalqalloocan bay kusoo saaray yara si kala in yar marka runtii meediyadu waa midi laba af leh laakiin waxaa aafa ka joogta oon runtii jecelahay inaan idinla maragsadaan waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed runtii oo samaystay home pages bay samaysteen marka qaar kamid ah baan wareysto mid wuxuu igu yiri maxaad u samaystaan wuxuu rag baan iska celinay waa arrin aafa runtii marka runtii waxaan jecelahay labadan shahaado runtii waxaan mid siin doonaa haddii lahayd ma anigoo idinka idin matalaya jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway waxaan ugu talagalay Maxamed Cali Americo oo runtii aan ugu talagalay shahaado sharaf inaan siin doono waxqabadkii runtii uu mutaystay ee uu jaaliyadda Soomaaliyeed qurba joogta runtii uu qabtay Maxamed anigoo ka wakiila jaaliyadda Soomaaliyeed isla markaana xildhibaankii ugu codka badnaa Afrikaanka jooga Norway waxaan jeclahay walaal waxaan ku leeyahay doorka shariifka aad ka qayb qaadatay dibloomkaasaa ka markhaati kacaya hadalka waa la ilaabayaa qolyahan YouTube-kuna inay qalalaan baa laga yaabaa laakiin bahashaas shahaadadaas runtii nin labaad baan jecelahay inaan kusoo gabagabeeyo anigu waa runtii waqooyi baan ka yimid laakiin integration fiican baan sameeyey oo afka nooc walba waan bartay xitaa shiribkan ciyaari kara haddii loo baahdo waxaan markaa la tashadaa runtii markay arrinta kulaato xuseen madoobe iyo shaaciye wallaahi ilama aha wax kale laakiin xuseen markaan la hadlo xuseen arrinta waa kulushahay markaa xuseen markaan akhriyo meeli waxaa ku yaalla waxaa la yidhi oday cabdille xaw ka yiri shaaciye markaa waxaan waayay baashe muuse xaw ka yiri shaaciye in maantana la qoro ayaan leeyahay marka runtii suugaanta shiribka aad bay taabatay anigoo yar oo xamar jooga ayaa waxaan arkay niman markaan xamar inay ex baarlamaana lagu ciyaarayay shiribka ma gar aad ma fahmayo runtii laakiin markii waxaan arkay ayagoo niman kule waa qaybta shiribka ugu qiimo badan weli xasuusnay waxay leeyihiin lugta baabuur ka kalena wuxuu leeyahay bambiira waay waa nimankani waxba sheegi maaya meesha marka lugta bambiira waa intaa shiribka waa ka cusla shiribka wuxuu leeyahay miisaan wuxuu leeyahay laashino wuxuu leeyahay wax fiican marka haddii aad shirib u baahan tihiin runtii waan soo gabagabeynaya xuseen shaaciye xuseen madoobe soo kac walaal shahaadadaasaan kugu talagalay xuseen madoobe runtii mahad gaariga mudan yahay waxa weeye ninkaas mahad gaariga mudan yahay ummadda Soomaaliyeed iyo suugaanta dahsoon xuseen aad iyo aad حسين ما هذا موقتي شرب نوعي تري حسين موقتي عشان موسى بريتن كان عندنا محلية حسين يدي بس يقعد في عناية شرب مركا أوبا هذا حلي كم عد في عند مركا حسين يدي وكوريتي أنت قاعد في عناية وهيس لا هيس وقال أنا هذا الهاي بشوبيريغا ويبيشه wuxuu yiri bashoobirig waa dishay codkaaga bilihiga anaha bila codkaaga habadshe calshan doorashada waa ilaahay aan ku badiyo kooda waa baashe aan doorado bashoobiiriga way bishe bilacodkaaga habadshe bashoobiiriga way bishe bilacodkaaga habadshe bashoobiiriga way bishe bilacodkaaga abwankii way bisemidoobe